xusbiga mucaaradka ayaa sheegay inuu guud ahaanba xusbigaasi uu ka saaray xildhibaan Naasir Qodax oo ah ku-xigeenka xogayaha guud ee xusbiga mucaaradka isla markaasina maanta ka mid ahaa xildhibaanada ay heshiiska wada gaadheen xusbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye afayeen u hadlay xusbiga mucaaradka ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba ay xusbiga ka saareen Cabdinaasir Qodax sidoo kalena waxa uu afayeenku been abuur ku tilmaamay tirada xildhibaanada ay sheegeen xusbiga kulmiye in maanta ay heshiiska ay kala saxeexdeen oo tiradooda ay ku sheegeen 12 xildhibaan halka xusbiga ucudna uu ku doodayo inay yihiin 9 xildhibaan aan maanta halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan in xisbiga ucid uu jawaabayo qolaha ku qabatay hotelka Mansoor ee yidhi waxaan nahay xisbiga ucid ku garab kamid ah oo ku kulmiye la galay heshiis aan jirin markuu madaxweynuhu isticmaalay qabyaalad oo uu reerkoodii ku qasbay xubnihii ka soo baxay ucid inay kulmiye u codeeyaan kuwaas oo ahaa inaanay sharcigu sidaas dhigayn dimuqraadiyaddu waxa ay ka soo horjeesteen inay xaq u lahayn inay heshiis la galaan xisbi kale sida xeerka xisbigu dhigayo qodobkiisa 22aad farqadiisa 4aad 5aad oo dhigaya wixii heshiis ah ee xisbigu la gelayo xisbi kale uu awood u leeyahay inuu saxeexo gudoomiyaha xisbigu inuu saxeexo markii uu arkay oo la tashaday xisbiga xisbigu wuxuu xilkii ka qaaday ku-xigeenkii xogayaha guud Cabdinaasir Yuusuf Cusmaan Qodax qodobkiisa isagoo u cuskaday qodobkiisa 7aad farqadiisa 1aad 2aad 3aad 4aad iyo 8aadba in tirada xildhibaanada ku dhawaadka ah ee heshiiska sharci darrada ah ay yihiin 9 xubnood oo kaliya aan ahayn 12 ay sheegayaan oo xubno dhacay oo saddexii ay ka mid noqdeen heshiiska isku dareen iyagoo aan ku jirin iyagoo oo horena u saxeexay heshiis sharci darro ah oo ay la galeen xisbiga ay daacad u noqon maanta ay jabiyeen heshiiskii iyo xeerkii kale ee historiga ah waxa kale halkaas tacsi aan uga diraynaa shacbi weynihii u soo doortay in ay u codeeyaan isbedel inay maanta awoodoodii dadka intay isticmaaleen oo ay qaateen codadkoodii ay ula tageen xisbigii kulmiye xaakinka ahaa iyagoo danahooda gaar ah ku fushanaya oo aan eegin shacbigii u codeeyay isbedelka taana aad iyo aad ayaan dadweynihii u codeeyay uga tacsiyadeynaa waxay ku salaysan yahay shirkudoonka iyo ayuu ku saabsan yahay maaha kuma inay biirin xisbiga kulmiye markaas uu xildhibaanka xaq uma laha codkiisa cid uu siinayo shirkudoonka ما حلوانات دلعي حقه ما هو صباح أي مك حسب جود كصباح حقه ما لا يعضيان شدون كأفكار دونية حقه ما له وحنا حقه كل هين وحي حسب بيهشيس لقلين وكصباحين هشيس كاس أو لصحيحين حسبك وكاو شرع الدرة وقينون كيوي شبيين دارتي بيت شبيين هذا هشيس صحيح هذا أما واي مسطر هذا حلبان هذا وصقال هذا هو الصقال قومي طبعا وحبك بالجيران حسبي ما يحلبان ما قول شيء لقالين إن حسبي كسب بحين أي داعدوا النقدان لقمنا بحي كانوا حسبي أو مرة حسبي لما تيجي كانوا محي مقولة وتجواين حسبي الدنيا هذه الدنيا وعضيان وشرع الدرة وأنا خايمين وقدمين تافيين وقدمين تافيين Cabdinaasir Qodax ayaa sheegtay xusbiga inay ka saarteen oo kamid ah xubnaha ugu saameynta badan xusbiga ucud ilaa goormuu sii wadaya talaabada ka saarista xusbiga laga ma saarin xusbigu desaga qofkii sharciga ba dhigayaba qofka haduu sirta xusbiga bixiyo inuu xusbi kala galo inuu automatically uga baxayo Cabdiqani Xuseen Abukar Cabdiqani Baylood wararka Sahan TV Hargeysa Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee Geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhamaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba.
sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaan qalabka electronics-ka gaar ahaan electronics-ka xafiisyada iyo guryaha qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah ku xidhnow Baxsane Group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiid telefoonada hoos idin ka muuqda ballanteenu waa Baxsane Group of Companies